tahay nagu soo biiro subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kugu soo gaaraan muuqaal walba soo geliyo. qisadani waxay ku dhacday gabar ka shaqeynaysa shirkadda Amazon. maalmaha kamid ah waxaa maqnaa in badan ka tirsan shaqaalaha shirkadda, waxaana joogtay gabadhaasi kaligeed iyo mid kale isla shaqeynayeen. gabadhan waxay u shaqeysay si aad iyo aad u daran, aadna ay u daashay. kadib ayadoo isku diyaarinaysa inay shaqada ka tagto ee aad xaafadeeda ayaa midkii isla shaqeynayeen wuxuu dhahay meel aad aadi kartid ma jirto, sababtoo ah dalabaad badan ayaa jiro, waxaan loo baahayaa in meelahooda la kala geeyo. kadib gabadhii waa ay aqbashay, alaabtii ayay soo qaadeen, waxayna soo aadeen dhankii dadka soo dirsaday alaabtii. xoogaa yar waxay isku dayday inay ninkii su-aalo weydiiso, asina wuxuuba ahaabo mid xanaaqa sanka saaran yahay, wax yar haddii yaraadaba wuu iska xanaaqay. kadib gabadhii intii ay ka aamustay ayay shaqadeeda fiirsatay. waxay imaadeen meel laga dalbaday alaab, guriga alaabta laga dalbaday. markay imaadeen alaabta ayay meesha ka dejisay. asigana wuxuu ahaa mid aad u kheylo badan. markii ay shaqooyinkooda soo dhammeeyeen habeennimadkii waxay bilaabeen inay usoo laabtaan ninkii shirkadda si ay gaariga iskaga xarayaan u kala tagaan. balse laakiin maxaa dhacay, ninkii gabadha isla shaqeynayeen darwalka ahaa ayaa wuxuu gudbiyeyba gabadhii shirkaddii laga rabay in gaariga lagu xareeyo ayuu gudbiyey. gabadhina waa yaabtay, aadna ay u baqday. waxay aragtay gaariga inuu kusii socdo dhul aad u mugdi ah oona leh geedageedoo keliya. kadibna waxay ku dhahday saaxiibo intee noo wada adiga caaba. isagana wuxuu ugu jawaabay waxaan rabaa arrin lama filaan ah inaan ku tuso. gabadhi aad ay u baqday, waxay ka fikiraysaa lama filaanka muxuu noqon doonaa. ayadoo cabsanayso ayuu gaariga wuxuu ku baakimay meel aad iyo aad mugdo ah. mugdigaas waxaa jiray guri ku dhex yaalo meesha saas aadka mugdigu ah. intuu gaba gaariga ka degay wuxuu dhahay ilaa amar dambe gaariga kama degi kartid, hadda ayaan kuu soo noqonayaa. kadib ninkii wuxuu dhex galay meeshii mugdiga ahayd guriga ku yaala ayuu aaday. gabadhii abaariya waxay 10 daqiiqo markay fadhisay gaariga dhexdiisa ayaa waxay soo xasuustay taleefankeedii iyo waxeedana inay yaalaan shirkadda. gabadhi waxaa qabatay gaarigana way sii fulweys. kadib intay soo degday ayaa waxay soo gashay duurka si ay xaajadeedu soo gudato. kadib markay waxay soo dhammaystay ayadoo soo bixi rabto ayaa waxay aragtay gaariga dhankiisa u socdaan 2 qofood oo wataan toosh. kadib gabadhii intay meeshii coscoska ah ku dhex socotay waxay soo aaday labadii dhankooda. labadii mid ka mid ah wuxuu dhahayay aaway gabadhii halkay geysay adiga, gabar gaariga ma wasaarnee. ninkan wuxuu lahaa war gaariga ay saarnaa, hadda aniga ayaa meesha ugu soo degay, ma aqaan meelay ku dhuumatay ama meelahan jirtaa ay wax raadinaysaa. kadib gabadhii shoog intay qaaday ayay aad u naxday. ninkii kalena wuxuu ahaa nin aad u xanaaqsan. kadib waxay isku dayeen inay duhurka iftiimiyaan, gabadhina waa ay ka dhuumatay. gabadhi intay aad u cabsatay waxay isdhahday maanta amaa lagu dili rabaa. meeshii coscoskeeda ayay ku dhex oraday si ay meeshan ugu baxsato naftadeeda u baadsato. kadib waxay aragtay meel buur ah oo hoos wada marto. meesha ayay kasoo taraaraxday si ay u raadsato meel ay ku fakato, mana ay taqaano meeshan ay maanta ku dhex lugeynaysa waxay tahay. kadib si lama filaan ayay waxay ku aragtay guriga ayay gashay. ninka ayaa boolis u wacay sida ay gabadhu badbaaday. isbuuc kadib intii ay shaqadeeda ka maqneyd, sababtoo ay shaqada arrinkaas markay dhacay kadib shaqadana waa ay kasoo tagtay. kadib waxaa soo wacay ninkii ay u shaqeynaysay meesha shirkadda iska lahaa, wuxuuna u sheegay ninkaas inuu lacag u dhiibtay. kadibna ninkaas lacagtiisa oo uu ku ciyaaray qamaar. kadib ninkaa qamaarka ayaa laga bediyey, lacagtii ayuu khasaariyey. markuu lacagta khasaariyeyna wuxuu dhahay waxaan ku siinayaa gabar. kadibna wuxuu dhahay lacagtan iga cafi. ninkan sawirka gabadha tusana wuxuu ahaa nin tuuga ka ganacsado dumarka. qisadana waxay ku dhacday gabadha askariyad ahayd. maalmaha ka mid ah gabadha askariyadda ayaa la soo wacay, waxaana loo sheegay inay jirto arrin muhiim ah. gabadhi waa ay isdiyaarisay, waxayna soo aaday dhankii shaqadeeda. markay shaqada aaday kadib waxay soo raaceen ayada iyo tiimkeeda. waxay imaadeen meel keen ahayd. keentaas waxaa lagu sheegay in qof lagu dilay. kadib markay keenta imaadeen waxa ay ku arkeen nin meyd ah oo dhulka yaalo. sida lala yaabo waxay ahayd ninka jirkiisa ma aysan lahayn wax garaafa ah. booliskana waxaa loo sheegay ninkaas inuu mar hore la dilay. gabadhaas kaliyadeed waxay kor taagneyd meydkii ninka ayadoo ka raadinaysa caddeemi waxyaabo noocaas.
balse laakiin si lama filaaya waxay ku aragtay ninkii inuu indhaha soo furay oona kadibna gabadhi la hadlay. gabadhi aad ayay u naxday, ninkii haddana indhihiisa ayuu daboolay sidii meydka camal ayuudana noqday. gabadh askariyeed inay yaabtay waxay dhahday aniga miyaad noogu ciyaaraysaa? labada askari kale ay wacday waxayna dhahday ninkaani ma uusan dhimanin, waa uu loo yahay. ciidamadii inay la yaabeen ayaa waxay ku dhaheen adiga muwaalan tahay, ninkaana waa mar hore ayuu dhintay waana meyd. feeri haddaad inay aaminayn ninkan sababtoo jirkiisa xataa wax garaafa ma laha mana dhiman waa nool yahay. gabadh askariyeed wax aamina ayaa la waayay. kadibna waxay soo xasuusanaysay hadalka ninka uu dhahay iyo sida uu soo fiiriyey. xaqiiqdii waxaa lasoo ogaaday ninkan in la dilay oona meyd ahaa markay tegayeen. balse laakiin gabadhi waxay ugu sheekaysay ninkan, waxay dhahday ninkan sidoo ku dhiman karaa anigaba ayuu soo fiiriyo ayuu la hadlay. ninkan marka xoogaa gabadhi ayuu fahmay, wuxuu dhahay waxaa macquul ah ninkan marka ugu dambeysa uu hadlaya inaad u timaado. qisadan waa qiso aad u xanuun badan, fadlan like share iloobin. qisadan waxay ku dhacday cunug mar walbaba ka fikiri jiray arrimo aan laga fikiri karin oo la yaab leh. subaxda ka mid ah cunuga marka uu soo kacay waxa uu ku mashquulay gacantiisa, wuxuuna dhahay maxaa waa 5 farood aan leeyahay, maxaan u yeeli waayay 6 farood. cunuga arrintaas ayaa stress ku riday, ayuu ku wareeray. saaxiib marka uu soo kaco asigoo murugsan ayuu soo kici jiray oo gacmihiisa mar walba fiirinaya oo gacmihiisa la yaaban. subaxda cunuga wuxuu bixi jiray asigoo fiican, habeen walbana wuxuu soo noqon jiray asigoo murugsan. murugtan waxa uu keenay dadka ayaa waxay dhihi jireen waad waalan tahay. habeen walba markuu guriga imaado ma uusan seexan jirin, gacmihiisa ayuu ku fikiri jiray, wuxuuna dhihi jiray maxaa waa 5 farood aan leeyahay maan yeesho 6 farood. cunuga mar walba oo YouTube isticmaalaya ama meel walba isticmaalaya social media dadka waxay ku dacayn jireen waad waalan tahay adiga ma fiyoobid. sababtoo mar walba wuxuu hadli jiray si dadka waalwaalan oo xanuunsan oo kale u hadlaan. mar walbana wuxuu tagi jiray tutoreso asiga daaweyn jirtay. tutoreso mar walba arrimaha uu sheego waxay dhihi jirtay isdeji maskaxda degso. habeenada ka mid ah ayuu gacmihiisa isagoo ku fikiraya wuxuu dhahay horta maxaa 5 farood aan leeyahay 6 faroodna waan yeelanahay, marka waxaa ii wanaagsan inaan yeesho 4 farood. cusub tahay nagu soo biiro subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kugu soo gaaraan muuqaal walba soo geliyo.